maxay Maraykanku halis u geliyeen saddex markab oo dagaal oo qiimahoodu balaayiin dollar yahay si ay uga gudbaan marinka Hormuz. Hagaag 7 May 2026 wax yar kadib markii xabad joojintii jilicsaneed ay dhex martay Maraykanka iyo Iiraan waxay sii waday inay gacanta ku hayso marinka Hormuz. Maraakiibta waxa lagu weerarayay gantaalo laga soo ridayo meelo qarsoon, doomaha yaryar iyo diyaaradahan duuliyaha lahayn, gaar ahaan jasiiradda Qisham iyo Laarak. markaas ayay Maraykanku qaadeen tallaabo qariska toornimo ah. waxay direen saddex destroyer oo ka tirsan ciidamada badda Maraykanka, USS Truckstone, USS Rafael Peralta iyo USS Mason, si ay uga gudbaan marinka Hormuz. inkastoo ay ogaayeen inaanay ammaan ahayn in halkaas lagu safraa, isla markii ay maraakiibtani mareen agagaarka jasiiradaha Qisham iyo Laarak ee Iiraan, kooxo doomaha oo aan ciidana wadin ayaa laga soo daayay godad qarsoon, halka gantaalada lidka maraakiibta laga soo tuuray buuraha kuna soo wajahnaayeen maraakiibtaas. taasina waxay ahayd wixii ay Maraykanku filayeen. hawlgalka ujeedadiisu ma ahayn oo kaliya in laga gudbo marinka, balse waxa uu ahaa in la ogaado goobaha qarsoon ee laga soo ridayo gantaalada, kuwaas oo khatar weyn ku noqday Maraykanka. cirka sare diyaarad dagaal oo elektaroonig ah oo nooceedu yahay EA-18G Growler ayaa daba socotay halka saxda ah ee weeraradu ay ka bilaabanayaan, halka dhowr diyaaradood oo FA-18 Super Hornet ah ay gadaal ka daba socdeen, iyagoo diyaar u ahaa inay burburiyaan goobaha laga soo tuurayo gantaalada. maraakiibtu waxay soo rideen bartilmaameedyadii ku soo wajahnaa, halka diyaaradaha FA-18 Super Hornet ay weerarkadiisa ku qaadeen buuraha, kuna duqeeyeen Qisham, Laarak iyo Bandar Cabbaas si ay ugu dambeyn loo soo afjaro howlgalkan. maraakiibta waxyeello yar ayaa soo gaadhay, balse dagaalka dhexdiisa marmarka qaar ayaa ay wanaagsan tahay in halista la qaato. ma rabtaa inaad baratid xirfadaha online-ka lagaga shaqaysto income iyo dhaqaalena aad ka samaysid online-ka? haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da, freelancing-ka, affiliate marketing-ka, cryptocurrency iyo digital products-ka sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo, iyo xirfadda e-commerce-ga, waxaan ku haynaa e-books si tafatiran kuugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqaysto. kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas, halkaas ayaana kugu soo diri doonaa. igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga.